maanta toole halkan waxaan ku furan doonaa shirweynihii ururka Bakal Political Association runtii waxyaabihii uu soo maray iyo asaasayaashii iyo laga warbixin doona haddii aan la idmo waxaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaantiin sida sharafta leh oo qiimaha leh oo aad noogala soo qayb gasheen shirweynaha maantay waan idinka mahadcelinaynaa ururkan Bakal waa urur loo siman yahay oo dhammaan shacabweynaha reer Puntland ay u siman yihiin waa urur aan filayno insha Allah inuu noqon doono muraayad weyn oo iftiin badan oo ay iska arkaan guud ahaan shacabweynaha reer Puntland waxaan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo wixii noo qabsaday muddooyinkii aan ka shaqeynay shaqadaas ka howlanay aniga iyo tiimkaygii warrayntii waxaynu ka bilownay shaqada gobolka Mudug caasimadiisa magaalada Kalkayood halkaasoo aynu ka furay xafiiskii ururka gobolka xafiiskii kadib waxaanu sameynay barag diiwaangelineed oo degmo kasta dhammaan degmooyinka gobolka waxaynu ka sameynay bar diiwaangelineed halkaasoo isdiiwaangelinta xisbiga ay uga socotay si habsami ah ilaa haddeertaana ay socoto inay dhalinyaradu xisbigaan shaqayn doonaan rajayna dalka inuu barwaaqo u soo doono inay soo biiraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka shaqada meesha ka sii wada ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan waxaan u rajaynayaa ilaahay ka baryayaa in ururkan waastaan oo waxaan u rajaynayaa guul iyo inuu noqdo ururada tartamada ku xigta ka soo baxa oo uu noqdo in urur soo jiita bulsho intan ka badan oo meel walbaba oo Puntland ama Soomaali ay joogaan uu gaaro horta marka ugu horeysa dowladda hadda jirta Saciid Cabdullaahi oo mahadcelinaya wax kale lagu mahadcelinayo waxaa weeye waa dowladdii ugu horeysay oo sanad ayadoon jirin bilowday in ay arrinta tan dadka dib loogu soo cesho oo dimuqraadiyaddii dib loo hayo annaguna waxaa naga go-an mar haddii taa naloo furay xisbigaan waa ururkaan waa suu u bilowday siyaasiga ah ilaa aan ka mira dhalinno oo aan dowladda laftigeeda aan gacanta qabanno aynan gaabin baa annaga naga go-an